داود وحاوي أو دقمات سوماليات واي ويل عدانه وما ما أضيع عدانه وأضيع عدانه أو جركي سعديه مركز داود يو إذن كساكي نحبها أنا وعاونها إن شاء الله تعالى داود بهاشان أنت صار نعاون ولا يودينا هذه ما أقام إنها جرنس وباركن أما ذاتك كاركود وهي لين برشن أما برشن الله أكبر ما وكل كسائب أنا هاي داود كسولو Greetings وهذا سلامتهين مركا عاو وحالي ويدي ما وحي ويدي عبد الرحمن أوجي يا ماما حاوة إنان إذن لقايبيو نو كمدا سوغانتا سوماردا مركا سي أن وضع أوغنهي داكن كسوماردا دينا سوغانتا وداكن تاجر أو نعير فربادن أو سوغان آيات شرا سيدا ماهيو سيدا جابي سيدا شيكا هريرا سيدا برامبور ويفربادني أي لكن أو وها لغرابة إن لقايبيو سوغانتا لا يرادا غوغوليسي أما دينلي كتات كاريخان ونعتمد حال هرالي. It's very important for the children to know that in Somali culture is very wealthy in the side of traditional literature. There are many types of poetry, many types of stories, many types of proverbs with wisdom, but there's also riddles. And so wahaila tehe gogalesi wa nakame the suganta Somalida o ay garahan rer guraga ama rer holodakata ay so sare o wahamujinea akli goda farabadi wayo habinki ama fidki marko holaha lowada hereyo dabka way ag fadisin jirin o way isu tijaban jirin wixii ay dibiga ay maalinimo ay ku arkin in ay ku bedeleen hab fikrada markaas mid wax yani qaablay oo kale in loma talo. So what they used to do, it's a very important educational tool actually, and it shows the intelligence and the wisdom of the people who lived in the rural areas and herded the livestock. Because in the evening when they put the livestock in the pens and they were sitting around the fire, then they used to test each other with these kind of riddles that you have to take a concept, something you saw in daily life, put it into a concept in your mind, and then put it to another concrete concept. And it's a very good form of education and sharpening your thinking. So, Ambalano. Wawaha leweidi inan toban gogalesi an idin weidi. لكن يا ويدينا عرورت ما ويدينا سمزدك وين waxa ila tahay waxa fiican dadka waaweyn inaan weydiiyo adi ma dooranay qofka weydiinaysid mise qofka asaga gacanta inuu taago waa idinka door ana weydiinaya marka mid oo tusaale ah miyaan sameynaa mid tusaale ah sameynaa okay marka waxa la yeelaa markii hore aniga googa aan oranaya kadibna waxaad oranaysaa caadalay kadibna wax baan sheegaya tix yar baan sheegaya markaas waad jawaabaysaa one ordo waan gaari weeyey haye ma garanaysaa haye kaalme maane ma ka jawaabi assalaamu calaykum magacayga waa caasha horta waa maantii ugu horreysay horta meel masraxa soo istaago daawud wuxuu yidhi waan orday waan gaari waay haddaan sheegana waa hooska maasha allah midda labaad waxaa weeye wax yar hala aamuso fadlan geedkan waxaa la yidhahdaa gambaraa la yidhaahdaa waa stew marka waa laba nin oo gambar isla fadhiya oo salaan gaari weeyey waa laba nin oo gambar isla fadhiya oo salaan gaari weeyey magacayga waa cabdiqani waas nuur laba nin oo gambar isla fadhido salaan isla gaarin geesaha looda waayo
For the children, for the translation for the children, it's two men sitting on the same stool, but they can't greet each other. And what Ugas said, it's the horns of a cow. The horns of a cow. Okay. Mit Siddhat Wahaway. Wahsulkan dan Osa Kayarwain. Osa Kayarwain. Wahsulkan dan Osa Kayarwain. waxa waaye raha waa aragteen suulkaas camar waaye laakiin codkiisa waa aragteen markuu qaylinayo. So for the children's benefit, it's every bit the size of my thumb, but it's a little bigger than a cow. Okay, on the surface it doesn't make sense. But if you think about the body of a frog, it's about the size of this thumb. But when you hear his voice at night, he sounds bigger than a cow. Okay, midda afarat wahawe. Okay. Goga. Nin as o el kujira. Nin as o el kujira. magacaygu waxa waaye Ubax Axmed waa Arabka. For the children, it's a reddish man inside of a well. So you have to think it's the tongue, or a pink man inside of a well. It's the tongue. Okay, Ken Shanat, Ido Jerengele ya Jedenkara. Ido Jerengele ya Jedenkara. waa ku celinaynaa mar kale su'aashaas ido jeerin galay yaa jeedin kara wallahi waa weynka waytan haye kaala bayday ido jeerin galay yaa jeedin kara magacaaga sheeg kaamarada fiiri asalaamu calaykum magacaygu waa Fartuun Cabdulaahi su'aasha haddaan ka jawaabo waa daadka. maasha Allah. That's excellent. Okay, so this is a very tricky one because you have to have spent some time in the bush following goats, like many children your age do in Somalia. So what it says is the sheep, which has pushed its head into a thicket where it's getting nice grazing, who can turn it around? Because once it goes in, it's very hard to turn it around. And the answer is a flood of water, just like you can't turn around a flood of water. Okay, midlahat. Goga. Wah der or daran koyen. wax dheer oo dhaaraan qoyan ninkaana soo istaagay magacaaga sheekada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد وآذن حسن محمد نور عيلك واي. Okay, this one says something which is tall or deep and has a wet bottom. It's a water well. And if you lived in the rural areas of Somalia, you know all of our water we draw out of a well. So, mid tolabat wahawe goga. Sadeh nin o nin walan sita. Sadeh nin o nin walan sita. Let me repeat that. waa maqashay Soomaa waa saddex nin oo nin waalan sita ani Soomaalida waa iska dhiilaaba. saddex nin oo nin waalan sita. saddexda nin waxa way dhaqdhaarada ninka waalanna waa dhariga. Kaas gaar ahaan waxaan filay in qof dumra ay fahmi doonto waayo wax badan bay isticmaalayaan waa saddexda dardaar marka for the children just so they know when we cook in East Africa most of the time we put 3 stones
and build the fire under the 3 stones, in between the 3 stones, and then the pot sets on top of it. So that one said 3 crazy men, 3 men carrying a crazy man. So the 3 men are the stones that the fire is built in between, and the crazy man is the pot on top, which is boiling. Okay, Siddhartha Goga. Kun halot kurtenko iskukulante. Kun halot kurtenko iskukulante. waa ku celinaynaa googa haddii si fiican uma dhehaysaanbe waa 1 halood kurtunkow isku kulantay wallahi macnaha xataa aan fahmin السلام عليكم أنا وحال إرادة شيف آذن حسين مركز سؤال هدان اسكو دايو إنو قبالك يهي وانو ملاينا قبالك جيلو بيها كعبو كاس ودي كاله لكن جوابت عن ليه ومد كاله لكن قبال هدي أركي دونته وكا مد وكا قبال ما كان وين أو أنا كتبناه أيه كاله السلام عليكم magacay waa Nuuraddiin Cumar Santur I think jawaabta hadaan sheego waxa waay idaha Soomaaliya لكن وهي قبال أو شيء وكان بيو يا لوجشوبا مركز هاش بدنا يا كعبة لكن كان وإناد أوبدا شو وهكله أو إج السلام عليكم magacaygu waa xasan axmed tabaac haddii aan su'aasha isku dayo waxa weeyaan dar ama maxaa la yiraahdaa darka ay marka geela ama la waraabinayo biyaha isku keena waxa loo sameeyaa baalsaana marka dar baan u garanayaa kulay Soomaaligu kala dugan yahay marka laakiin waxa la yiraahdaa dar ama magaceero kale Soomaali kale lagu yiraahdaa ayro noobo marka Soomaaligu kala dugan laakiin saxsan u garanayaa dar saxmiya وهالشيء سوا وداب أهان وهي هاش فربنا يسوي مانين لكن كفكر وهكله أون هاش أهين أما أن جل أهين أو إج إج يعني وهبادن أو شنكار فربنا سمينيا أو هالمل يسوي هذا إيمانيا su'aasha waa ku celinaynaa hadii la garan waa halood kurtunkow isku kulantay gabadhaas insha Allah rajeynayna inay ka jawaabto السلام عليكم magacayga waa idil waa su'aasha waxa weeye jawaabteeda tuurta geela وجيل فربنا أو يسوي مانيا هال كرتن لكن كبدل وهكله أون جيل أهين أو إج أو شنكار أهان أو إج Okay, su'aasha jawaabteeda sax ma aha. Those of you who don't understand Somali, we're having a lot of fun. Somali native speakers are failing to answer some Somali riddles that came from Dawood, including myself. Go ahead. magacayga waxa la yiraahdaa Xasan Macalin Raage su'aasha hadaan isku dayo waxa weeye ceelka geela ka cabo biyaha ويان كونك هلاد كرتونك كونك هلاد كل ميو وعيالك بيها جيل وكعبه ونقول كرر لكن جوابت عن دونيا أما عن كرر معها ربادي magacaygu waa Xuseen Cabdulla Caddow waxa waayna markuu geelu candhaysay candhadu waxa waayna wax shirka geela ku dhaca oo macnaha xanuun u keena marka geedka tiirka oo hasha xanuunsan oo candhada qabtaa ay ku xoganayso inta kalena way uga daba xogataa waa maasan yahay Daawud u dhiibayna inuu sax yahay in kale Daawud ay marka
weli waxaad sheegaysa waa wax geel ku saabsan marka waxaan jawaabta ma aha wax geel ku saabsan waa bahal waa xayawaan kale oo ilaahay abuuray oon geel ahayn دكتور الموبتا جوابتنا هيس جوابتنا هيس موبتا هاي سودو markaan waxaa umaynaa waa bannaan tahay in la qaldo soo maa waa dudun dudun waa shinni laakiin dudun waa mid oo u gaar ah waa u egyahay dudun iyo shinni waa shinni oo isu wada yimaadaan shinnida waa kun halood meeshii yani buulkooda waa kurtankii dib ma laha marka googa ul qurux badan oo jid ku taala oon la qaadi karin ul qurux badan oo jid ku taala oon la qaadi karin assalaamu calaykum magacayga xamdi macaan siciid la dhahaa waxaan dhihi lahaa maska waaye mas. So for the children, the riddle was a beautiful stick laying on the road that you cannot pick up. It's a snake. Okay, snakes often are very beautiful color, looks like a stick, but it's dangerous to pick up. Okay, the last one, ki udambewe, goga, laba khair la kalakari, laba khair la kalakari. laba kheer laga kharkhariyay waa taqaanaan khayr sooma khayrka laba khayr la kala qari khayr la kala qarnaa intee ku aragna laba khayr la kala qari haye cameramanka yiri arag jawaabay laba khayr la kala qari soo dhawada kamarada assalaamu calaykum caawa nagu daadsantaha wallaahi saa'id bay noogu daadsantaha ilmihii yareeraa wax ka sheegaynay annagay bay nagu daadsan tahay laba khayr oo la kala qariyey siday ila tahay waxa waaye waa roobka iyo kitaabka waa sax marka waad mahadsan tihiin marka sax weeyaan jawaabta waa sax so for the children's sake it's two very blessed or good things that you keep separate. Two blessed or good things which we keep separate. One is the holy books and the other is the rain. Okay, gogaaleysigii qaybtiisa intaas uu nooga yahay 10 su'aalood